بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. waxaan kasoo hadalnay ama aan soo bilownay cashiradeenii imtixaanaha aan ku heshiinay inaan sharaxi doono obstetric and gynecology. waxaan kasoo hadalnay si guud hadda general usoo bilownay history and examination, kadibna hadda waxaan bilaabaynaa obstetric markaan dhameen waxaan gudbi doonaa haduu ilaah yirahdo insha allah gynecology. obstetric markaan ku bilaabayna waxaan ku bilaabaynaa the first ugu horeeya ama wax ugu horeeya inuu noqonayo physiology of conception, qaabka u sameysmaayaba bilaaban cunuga caloosha soo galaya. obstetric saa ogtihiin wuxuu noqon doonaa wax la xiriira pregnancy-ga, ay disease la xiriira pregnancy-ga. gynecology wuxuu noqon doonaa disease-ka la xiriiro mataqaanaa la xiriiro anatomy ama reproductive system of the female, ama ku dhacayo infection ku dhici doona reproductive system of the female, ama tumorska ku dhacayo, ama mataqaanaa infertility-gii ama contraception-kii, ama mataqaanaa cudurada la xiriira aan leenahay reproductive system-ka. ama obstetric waxaan ahaa cudurada la xiriiri doono pregnancy-ga. so intaan pregnancy bilaabin horta muxuu yahay conception, qaabka cunuga u sameysmaayo bilawga intaanan fahmin yani waxa ku dhacayo iyo mataqaanaa changeska ku dhacayo. marka waxaan leenahay bismillahi raxmaan raxiim. waxaan ku bilaabaynaa marka physiological physiology of consumption, qaabka u sameysmaya bilawga mataqaanaa cunuga. marka waxaa leenahay qaabka u sameysmaayo ko hadafka waxa waaye waxaa isku tegaayo sperm ama waxaa isku tegaayo iyo ovum. waxay sameynayaan fertilization, kadib waxay soo sameynayaan cell change soo dhici doono, waxay imaan doonaan uteruska, waxaa dhici doono implantation. marka implantation ka dhaco waxaa sameysmi doono mataqaanaa fetuski. this marka waxaa leenahay waxaa sameysmaayo fetuski. the conception is that waxaa leenahay waa initial stage-ka oo ka sameysmaayo, yani waa initial stage-ka ama bilawga uu ku sameysmaayo cunuga, qaabka oo bilawga uu sameysmaayo. waxaa leenahay this is waa initial stage of the human that allow of the stabilization of the pregnant. waxaa leenahay this is waa conception, qaabka uu sameysmaayo cunuga. waxaa dhacayo intercourse-ga, kadib waxaa leenahay waxaa dhacayo deposition of the spermia ku aruurayo, wuxuu tagaya vaginaha, kadib wuxuu tagaya cervix-ka, kadib waxaa la geenaa kor aada transport, wuxuu aada the uterus-ki, and then waxaa waaye wuxuu aada fallopian tube, kadib waxaa dhacayo fertilization, waxaa la geli doonaa of the ovum, kadibna waxaa leenahay waxaa dhici doono wuu soo laabo doona, wuxuu imaan doonaa uterus-ka, wuxuu sameyn doonaa implantation. this is the call it physiological conception of qaabka u sameysmaayo. waxaa ku kooban yahay bilawga ovum iyo sperm. ovum and sperm midoobi doona, waxayna sameyn doonaan wax loo yaqaano fetus. ovumka sida caadiga aad taqaan waxaa laga soo daayaa gravian follicleska. gravian follicleka waxay sameynayaan rupture, kadibna waxaa waaye waxay kusii daynaysaa intra abdominal. markii abdominalka lagu sii dhex daayo ovumkii ay gravian ay sameyso, waxaa soo qaadanaya fimbria of the ovary, kadibna waxay keenaysaa fallopian tube-ka, and waxay sugaysaa for waxay sugaysaa wax loo yaqaano sperma in la sameeyo fertilization. ovumka saa ognahay waxaa ku wareegsan banaanka waxaa loo yaqaano zona villosida and corona radiata. yani this is waxaa labadaas layer ayaa ku wareegsan ovumka. labada layer marka shaqadooda maxay tahay? labadooda zona villosida and corona radiata protection ay u sameynayaan inay ani injury ama ani inay wax walba ay soo galaan ay ka ilaalinayaan. waa protection waxay u yihiin mataqaanaa ovary-ga. marka waxaan leenahay this ovumka, yani ovumka waxaa leenahay gravian follicles. waxaa leenahay bil kasta waxaan leenahay waxaa sameysmaayo maturation, waxaa lagu sameynayo ovary-ga. ovary marka lagu sameeyo kadibna waa lasoo deynaa. saa ognahay waxay ku istaagaysaa mataqaana markii gabadha mataqaana hooyada uurka ku jirto, waxaa leenahay intrauterine pregnancy-ga ayay gabadha waxay noqonaysaa female ama male marku noqdo. markay female noqoto intrauterine-ka inta lagu guda jiro intrauterine fetalka markuu ku jiro ayaa waxay sameysmaysaa inay bilowdo waxaa loo yaqaano oocyte-ki inay sameyso deviation, inay noqoto primary oocyte. kadib waxaa waxay ku istaagaysaa primary oocyte, kadibna markii ay puberty noqoto waxay bilaabaysaa inay gasho secondary oocyte. markii lasoo daayo ay mataqaana lasoo daayo ovumka, waxay imaanaysaa tube-ka. markii ay fertilization gasho waxay dhamaystirmaysaa, waxay noqonaysaa oocyte. yani waxay isku bedelaysaa secondary oocyte, waxay isku bedelaysaa inay noqoto oocyte. oocyte-kii iyo secondary polarki markaas isku bedelaysaa. this marka waxaa leenahay waa yani cibaara caan waxaa leenahay waa ovumki. yani ovumka waxaa leenahay this waa ovum.
this waxaa leenahay waa cadaankan ujeedo dhan ujeedo waxaa waaye this is a zona pilosida, this is a zona pilosida, abyadkaas oo dhan whitekaas ujeedo waxaa la dhahaa zona pilosida. This waxaa leenahay waa this is way ku wareegsan tahay, this is all zona pilosida. Kana waxaa leenahay this is a corona radiata, this is a corona radiata. Waxaan labadaas layer ku wareegsan waxay ka ilaalinaysaa markii inuu ani sperm oo iska gala meeshii ama aniga injury ku dhici karo ovumka la waardiyana. This is ovary ovumki waxaas ku wareegsan marka waa la waardiyana, kadibna waxaa loo diyaarinaa inay mataqaanaa ay falgasho la falgasho spermihii bil kasto. Haddii ay geli weysan waxaa dhacay cycle-ka imaanaya, haddana bil kasta waxay bilaabmaa inay soo tahay ovum every month, every 28 days waxaa dhacaya in ovum la sameeyo, Graafian follicleski inay sameeyaan ovum soo daayaan. Haddii uu dhaco fertilizationka khalaas yani waxaa waaye waa stop ayaa lagu sameynaya. Negative feedback estrogenka ay soo daynayaan follicleska, negative feedback wuxuu ku sameynaya in la joojiyo aan mar dambe la sameyn ovumka ilaa ay hooyada pregnancy ay ka dhamaanayso. Ama during the pregnancy marka waxaa waaye ma dhacaas ovulation ma la sameynayo. Waayo maxaa yeelay estrogen high, estrogen wuxuu sameynaya negative feedback wuxuu ku sameynaya in laan la soo daynin mataqaan aan la sameynin ovulation inuu sameeyo. This is sperm also. Sperm waxaa la dhahay even ejaculation waxaa waaye sida lagu qabeeyay 2.5 million of semen. Wuxuu ka kooban yahay 50 ilaa 200 oo milyan of sperm. Yani halkii mar oo semenka waxaa ku jira leenahay ugu badnaa yani waan iska yaraan sida caadiga 20. If less than 20 million min waxaa waaye bukaanka waxaa waaye infertility, laakiin inuu ka bato more than 20 milyan ilaa 50 ama 200 milyan. Kadib sperm wuxuu soo aadaa cervixki, uteruski and then fallopian tube. Badanaa yani waxaa saacida laba mid yani labada xabo uterine contraction yani waxa waaye oxytocin wuxuu sameeyaa uterine contraction wuxuu keenaa in sperm uu aado up to the fallopian tube inuu kor aado. sidoo kale sperm wuxuu leeyahay tail and flagella and also waxay ku saacidaysaa movement-iga inuu aado oo fallopian tube-ki oo gaaro. kadib waxaa dhacaa waxa loo yaqaano capacitation. yani capacitation waxaa waaye leenahay waa capacitation dhacaya. capacitation waxaan ku sheegay inuu yahay spermihi ayaa waxaa loo diyaarinaa in uu la falgalo ovumki, yani loo diyaarinaa the preparation of the sperm inuu la falgalo ovum. maxaa loo yaqaana capacitation. capacitation marka waxaa waaye waa la diyaarinaa si oo u dhexgali karo spermi ayaa loo diyaarinaa. waxaa leenahay oo hadda penetration uu sameeyo corona radiata zona pilosida ayaa loo diyaarinaa. wuxuu soo daynaa waxa loo yaqaano proteolytic enzymes ama hyaluronidase enzyme. enzymekaas waxay sameynayaan dissolve of the corona radiata, yani waxay burburinayaan corona radiata si uu dhex baxo spermi. sperm penetrate the cell somehow, yani wuxuu ka dhex baxa cellkii and cell membrane. markuu cell membrane galo waxay sameynayaan cell membrane waxay sameynaysaa change waxa loo yaqaan depolarization to prevent inuu other sperm oo galo. yani maxaa yeelay haddii aysan sameyn waxaa dhacaya in sperm badan ay galaan. sperm badan meesha soo galo waxaa dhacayo poly sperm soo ma rabno. yani waxaa leenahay one sperm markuu galo ovumka cell membrane of the ovum waxay sameynaysaa change ku dhacayo depolarization to prevent other sperm to enter the ovum, yani inuusan mid kale uusan gudaha u gelin, yani to prevent the poly spermia inuusan gudaha sperm badan gelin. only one sperm enter. after one sperm oo galo cell change dhacaya, depolarization dhacaya and then to prevent there is no other sperm to enter. yani 20 million or 20 million or 50 million sperm, only one sperm ayaa wuxuu galaa ovum. inta kalena waxaa waaye waa laga celinaya. yani saan picture kadib aan kusoo aragnay oo ahaa spermiha oo mataqaana inuu mataqaana oo ay 20 sperm u galay. yani all sperm waxaa hal xaba ayaa galay. waxaan fahnay ovumkii aan waxaan fahmnay aan sperm waxaan fahmay qaabka loo sameynayo oo u dhacayo mataqaana iladooda loo diyaarinayo. kadib waxaan gelinaa marka qaabka u dhacayo mataqaana fertilization. this waxaan ahnay only one ayaa waxaa soo daynaa marna x marna y. marka x ama y uu soo daayo yani waxaa sameynaa ama fetus ama waxaa sameysmaayo fetus waxaa sameysmaayo male ama female. yaa xadidayo male ka xadidayo. yani hadduu x soo daayo female noqonaysa, hadduu y soo daayo male noqonaysa. maxaa yeele mar walba female-ka waxaa leenahay waa x-keeda waa constant waaye. marka 23 waxay noqonayaan marka 46 waxay noqonayaan chromosome ayay noqonayaan. waxaa leenahay this is waa general conception of the ovum-kii and sperm. hadda waxaan gelinaa marka waxaa la fertilization. fertilization saan sheegnay yani waxaan dhahnay this waa ovary waaye. this is the ovary. ovary waxaa leenahay sameyn inuu soo daayo Graafian follicles waxay soo daynayaan every month waxay soo daynayaan rupture ay sameynayaan waxay soo daynayaan ovum. ovumka soo daayo this is the fembarium. of the fallopian tube. waxay qaadanaysaa way absorption ku sameynaysaa, way qaadanaysaa, way gelaysaa
waxay tegaysaa lateral party ama ambulla of the ovary waxaynu of the fallopian tube ambulla yani partida kamata partiga lateralka waxaa leenaha oo loo yaqaan ambulla ayuu ka dhacay fertilization spermaha gelaya waxaa dhacay fertilization waxaa dhacaya in cellska ay sameeyaan deviation yani 2 cell 4 8 16 32 and so on kadib waxay noqonaysaa isku daxa loo yaqaano merulla merulla kadib waxay isku sii bedelaysaan leenahay inay noqoto blastocyst kadibna waxaa leenahay waxay soo gaaraysaa endometriumka kadibna waxay isku bedelaysaa inner cell this waxaa leenahay waa inner cell iyo waxay noqonaysaa outer cell outer cell waxay siinaysaa trophoblast waxay sii doontaa placentadii and so on inner cell kan waxay sii doonaa embryo kadibna waxaa dhacaya implantation this is implantation hadda waxaa jira inaan fahanno fertilization iyo cleavage cleavage maxaa waa qaabka steps ku maraya 2 cell 4 cell 8 cell and so on oo sii socona ilaa oo cellska ay sii badanayaan this waxaa loo yaqaanaa fertilization and cleavage okay implantation maxaa laga wadaa implantation kasoo sheegnay waxaa leenahay zygotekii fallopian tube-ka soo gaarayaan yani waxaa soo gaaraya blastocyst aan sheegnay waxay soo gaaraan leenahay marullahi iyo waxay soo gaaraan inda uteruska iyo waxay ku dhigaa endometriumka endometrium marka magaciisa wuxuu noqonaa yani meesha ku sameeyay normal implantation wuxuu ka dhacaa leenahay endometriumka mostly upper part of the funduska ayuu ka dhacaa leenahay yani weliba wuxuu ka dhacaa endometrium like waxaa loo yaqaanaa markaas decidua magacaas uu qaadanaya endometriumka decidua noqonaa markaas decidua aan leenahay endometriumka kaas oo mataqaana sameynayo meesha qayb ka dhacaya implantation kadib wuxuu noqonaa waxaa loo yaqaano blastocyst blastocyst wuxuu ka kooban yahay saan sheegnay wuxuu ka kooban yahay inner cell mass and outer cell mass yani waxaa leenahay wuxuu ka kooban yahay leenahay inner cell mass and outer cell mass ayuu ka kooban yahay this marka waxaa leenahay this is waa inner cell this waxaa leenahay waa inner cell mass iyo wuxuu ka kooban yahay outer cell mass this waxaa leenahay marka waa يعني blastocyst يعني علينا blastocyst ayaa dhacayo blastocyst ayaa wuxuu soo gaaray endometriumka iyo outer cell mass loo yaqaano trophoblast trophoblast waxay sii doonaa placenta and membrane inner cell mass waxay sii doonaa future waxay sii doonaa embryo this waxaa leenahay waa blastocyst yani waxay soo gaaraysaa inside of the endometriumka saan hadda ku aragnay the picture-ka saan ku sheegnay aan waxaa leenahay this is one inner cell and outer cell mass yani markuu soo gaaro yani uterus soo gaaray يعني سان شيء first week wuxuu ka kooban yahay laba qaybood aan u qaybinayna first week wuxuu ka kooban yahay qayb loo yaqaano mataqaana intertubal and waxa loo yaqaano iyo intrauterine intertube maxaa waaye inta soo dhacayo waa fertilization kii cleavage kii ilaa uu ka soo gaaray yani waxa first week wuxuu ku dhamaanaa intaas yani first week second week wuxuu ka bilaabmi doonaa after implantation marka waxaa leenahay first week waa noo soo baxa loo yaqaan inuu qaybna jiri doono qaybna waxay soo geli doontaa waxaa loo yaqaan marka laba qayb aan qaybinayna first week intertubal phase and intrauterine phase ayaan qaybinayna yani blastocyst waxay soo gaaraysaa endometriumka soo waxaa endometriumka maxaa qaadanaa magaca loo yaqaano decidua sababna marka yani laba qayb baa laga xisaabiyaa age-ka of the fetuska inaan ka xisaabino cycle-ka waxaan leenahay inaan ka xisaabino aan dhahno cycle gestational age kan ka xisaabino LMP kan ka xisaabinayna ama inaan ka xisaabino conceptional age yani inaan ka xisaabino after ovulation ovulation wuxuu dhaco ayaan ka xisaabinayna marka labadaba waxaan xisaabinayna marka laga xisaabinayo LMP ga waxaan ka xisaabinaysaa first day of the cycle sama tan waxaan ka xisaabinaysaa after ovulation conceptional age waxaan ka xisaabinaynaa after ovulation goorma u dhacaa markii 14 days kadib sama so marka waxaa LMP ga badan aaweyn LMP ga haddaa ka xisaabisid haddii aad ka xisaabinaysa conceptional age wuxuu ka bilaabo after ovulation means laba wiig la dheeray marka waa in laba wiig ku tartaa si ay u dhamaystirmato and ugu dhaco so marka waxaan leeyahay hadda sheegnay inaan fahnay wadada muxuu yahay qaabku dhacay conception-ka waxaan u dhacaa dhahnay yani conception wuxuu dhacaa dhahnay inuu mataqaana ovum-kii iyo spermihii inay midoobaan ovum-ku muxuu yahay qaabku soo baxayo sperma qaabku soo baxayo kadib way sameynayaan zygote sameynayaan marka kadib waxaan leenahay waxay soo soconayaan fallopian tube soo marayaan cells baa ka qaybsamayaan 2 cell 4 cell 8 cell magacyada isu beddelaya mar walba ilaa ay soo gaarto endometriumka ay noqonayso blastocyst يعني waxaan aan qaybna waxay noqon doontaa inner cell mass waxayna sii doontaa hadhow embryo qaybna waxay noqon doontaa outside oo loo yaqaan trophoblast this waxaan marka qaabka u sameeyay kadib waxa dhacay implantation normal side of the implantation you must know abnormal implantation waxa weeye tube ku dhex sameysmaba ama abdominalka ama hoos cervixka waxa loo yaqaan abnormal ama ectopic pregnancy oo ku sameeyay implantationka in the fallopian tube-ka ama ku sameysmaa intra-abdominal this waxa loo yaqaan ectopic pregnancy ama normal implantation oo ka dhaco endometrium
okay marka waxaan bilaabaynaa embryo and fetal structure qaabka xubinka u samaysmaayo decido maxaa dhahnay decido waxaan dhahnay inay tahay waa uteruskii endometriumkii oo implantationka lagu sameeyay waxaan u bixinay decido marka waxaan dhahnay yani waxaan leenahay waxaa waaye wuxuu ka koobnaan doonaa saddex qeybood decidua bisalis and decidua capsularis and decidua bractalis ama loo yaqaano decidua vera waxaan leenahay saddex decidua jirto يعني saddexdaas waa decido endometriumka ayaan qaybsanay okay waxaan fiirinaynaa marka picture-ka ayaan fiirinaynaa qaabka ay mataqaanaa ay u samaysmayso decido waxaan waxay ku kooban tahay tan qaybtan ujeedan oo qaybtan oo mataqaanaa oo buluga ah qaybtan buluga ah this is waxaan leenahay waa decido this is kul waxaan leenahay oo cunuga hoostiisa ku jirta decido waxaan leenahay decido bisalis waa hadhow qaybta isii doonto waa decido bisalis waa qaybtaas oo kuligeed aan marinayo waa qaybta hadhow isii doonto decido bisalis waa qaybta isii doonto placenta waxay leedahay laba part maternal part and fetal part marka waxaan leenahay qaybta hooyada oo loo yaqaano placental part ee hooyada waxay ka imaanaysaa decido bisalis kana ka imaanaysaa decido bisalis waxaan leenahay waa hadhow isii doontaa placental part maxay waa qayb endometriumka kamid endometriumka wuxuu isku bedel magaca loo yaqaano decido bisalis qayb kale waxaa jirta cunuga kor u wareegsan oo loo yaqaano decidua waatana decidua capsularis waatana qaybtaas waa qaybtan waa decidua capsularis decido cunuga ku wareegsan tahay decidua capsularis ama decidua bisalis iyo mid waxaa jirta dhan banaanka ugu sii wareegsan waxay ku wareegsan tahay inta soo hartay of the of uterus inta soo hartay ayay ku wareegsan tahay waxaa leenahay this is waatana waxaa loo yaqaanaa decidua bractalis waxaana waxaa leenahay waa decidua bractalis tan waxaan leenahay decidua bisalis marka waa inta kamid oobaya marka yani waxaan marka decidua qaabkaas u wareegsan yahay jirka qaabkaas ayuu ugu wareegsan yahay maxaa soo haraa marka qaybtii cunugan waxaa leenahay waxaa loo yaqaano corian waa kana cunuga qaybtiisa yani waxaa la dhihi doonaa iyadana qaybtan corian frondosum asna waa tan qaybtiisaas asna waa qaybtan fetal part oo sameyn doonta placenta waxaa loo yaqaano corian frondosum qaybtan kalena waxaa leenahay iyadana waxaa leenahay corian kale ayaa laba qayb ka koobnaan doonaa marka this waxaa leenahay marka other picture this is waxaa leenahay this orange waxaa leenahay waa decidua bisalis waa orange-gan waa decidua bisalis intaasna waxaa waa bisalis waa qaybta beeska oo cunuga hoosta ku wareegsan waa oo hadhow sii doonto maternal part qaybtan kale kor u wareegsan waxaa leenahay waa cunuga ku wareegsan decidua la socon jeeda decidua capsularis waatana decidua capsularis tan korena waxaa leenahay waa decidua bractalis waxay ku wareegsan tahay uterus inta soo hartay the remaining part of the uterus inta soo hartay oo aan cunuga isku jirin ayada ku wareegsan intaas cunug kuma jiro sooma inta cunug ku jirana waa tanatan waa bisalis cunugan asna wuxuu leeyahay asana cunugan wuxuu leeyahay loo yaqaano corian frondosum waxaa waatana qaybta ayadana oo intan orange waa sooma orange-ga yaa waay waa hooyadii waxaa loo yaqaanaa decidua bisalis asna waatana qaybtan ridka waa decidua corian frondosum ayaa waxay sii doontaa hadhow placentada fetal partiga ayaa siinaya corian frondosum ay siinaya hooyadan placenta ayaa sii doono waxay sii doono decido waatana decidua bisaliskana waxay sii doonaa maternal part of the placenta marka la halaan waxay isku noqon doontaa hadhow placentadii sii doontaa halaas yani fetal part ama maternal part hadhow marka waxaa dhici doona marka hadhow waxaa midoobayo yani uurka markuu weynaado kana waa weynaaday yani waxaa midoobayo yani decidua bractalis waatana decido bractalis waatana mida banaanka wareegsan decido bractalis banaanka wareegsan inta uterus iyo waxaa midoobaya corian larvae yani corianka waxaa corian larvae corianka waxaa cunuga waa laba qayb waa qaybna waa hoos jirta oo placenta sameyn doonta waxaa loo yaqaan corian frondosum qaybna asay ku wareegsan tahay waxaa loo yaqaana corian larvae labadaas uu leeyahay corian placentada iyo mid asay ku wareegsan tahay waxay kasii hooseysaa waxay kusii wareegsanaa doonta hooyadii endometriumka loo yaqaano capsularis marka labadooda midoobaya markaana way midoobeen decidua capsulariskii hooyada iyo corian larvae cunuga midoobaya hal layer isku noqonaya markii ay cunuga u weynaado this is very important waatana placenta way samaysmatay oranjigan ujeeda waxaa waaye waa decidua bisalis qaybtii oo maternal party kana waa cunuga qaybta corian frondosumkii waay halaas marka ay siinayaan this is waxay sii doontaa placenta and very important so marka waxa loo yaqaano waxaa jiro wax loo yaqaano
chorion ama waxa loo yaqaano fetal membrane. Sorry, waa tirtira. Waxa loo yaqaano fetal membrane ajo. Fetal membrane waxaa laga wadaa fetal membrane waxaa laga wadaa fetal membrane-ka yani waxa uu leeyahay laba qaybood ka kooban yahay fetal membrane-ka. Fetal membrane waxa loo yaqaano amnion. Waxaana waa amnion iyo chorion. Waxa ku kooban yahay amnion and chorion. Haddii lagu dhaho fetal membrane labadaas qaybood waay. Chorion and amnion. Chorion and amnion. Chorion waxaa leenahay asigana yani wuxuu sameysmi doonaa second week. Second week waxaa sameysmi doona waxa loo yaqaano yani waxa first week waxaan u qaybinay iyo second week. First week waxaan dhahnay isbuuca koobaad. Soma isbuuca koobaad waxaan dhahnay wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood. Qayb intratube iyo qayb oo intrauterus. Qaybna tube ka soo sameysmaya oo ah fertilization-kii, cleavage-kii, in cells-ka shaqada ka qaybsamaan ilaa soo gaaraan uterus. Uterus markuu soo gaaro implantation ka dhacayo. Isbuuca koobaad waa. Ama isbuuca labaad waxaa sameysmaayo waxa loo yaqaano trophoblast. Waxay sii doontaa laba qaybood. Syncytial trophoblast and cytotrophoblast. يعني syncytial trophoblast and syncytial trophoblast. يعني maxaa ka wada يعني trophoblastihii banaanka ahaa oo chorionki ahaa ayaa wuxuu sameynaa laba qaybood. يعني cunuga waa qaybtiisa chorionkiisa waxaan waa laba qaybood. qaybtan waxaa leenahay waa free waa soo qaybtan ujeedo waxa waaye waa free maxaa ka wadnaa abaatana yani qaybtan waa free yani maxaa ka wadnaa banaanka jirta. qaybtan waxaa leenahay waa fixed. qaybtan oo fixedka ayaa waxaa leenahay yani waxa aan free ahayn ayaa waxay noo sameyn doontaa waxa loo yaqaano laba qaybood. Syncytial trophoblast iyo cytotrophoblast. Yani waatana syncytial trophoblast waa qaybtan banaanka. Syncytial trophoblast iyo cytotrophoblast. Ama qaybtan waxaa leenahay ayadana waa qaybta free ah oo aan mataqaana aanan qaybsamayn. qaybtan waa innerkii gudaha sama qaybtan waxaa lahaa waa hadhow qaybta embryology sii doonto waay oo loo yaqaan inner cell mass. tan waxay ka doontaa syncytial trophoblast ay noqon doontaa qaybtan oo endometrium-ka la midoobaysa. Endometrium waxaana waxa loo yaqaan decidual. qaybta waxaa arki doonaa decidual tan qaybtan soo sharaxna waa. marka waxay soo doontaa waxay dhacdaa marka second week. marka waxay soo doonaysaa waxa loo yaqaan HCG. waa HCG loo soo doonaa. HCG waxaan u soo doonaynaa to maintain the corpus luteum si nagu ilaaliso. corpus luteum hadda waxay siinaan si oo mataqaana u sii wado estrogen and progesterone production-ka uu sii wadaa. yani wuxuu sii wadaa leenahay estrogen and progesterone. yani second isbuuca labaad waxaan leenahay iyo isbuuca koobaad. isbuuca koobaad waxaan leenahay waxaa dhacaya implant fertilization-ka iyo tube-ka soo dhacaya. waa qaybna tube-ka ka dhacaya qaybna waxay ka dhacaysaa uterus-ka. uterus-ka waxaa leenahay isbedela layer waxay noqonaysaa uterus-ka iyo endometrium waxaa loo yaqaana decidual. decidual waxaa leenahay waa meesha endometrium-ki waaye soo ma. marka waxaa leenahay decidual waxaa leenahay waxa waaye qaybka oo cunuga ku wareegsan oo loo yaqaano disalis ama hoos ah oo hadda sii doonto placenta party iyo qayb si ku wareegsan oo loo yaqaano capsularis iyo qayb banaanka oo loo yaqaano parietalis oo ku wareegsan endometrium inta aan cunuga uusan ku jirin. cunugana waxaan dhahnay wuxuu sameynaa waxa loo yaqaano chorion. chorionka waxaan leenahay ama qaybtiisa banaanka loo yaqaano trophoblast. trophoblast waxaan qaybna invasion ay sameyn doontaa. invasion waxay la sameyn doontaa endometrium-ka. chorion oo frondosum loo yaqaano. kadibna waxay soo socdaan syncytial trophoblast iyo cytotrophoblast iyo qayb outside aan dhahnay aanan mataqaana waxba ku dheganayn. marka cytotrophoblast waxa waaye badanaa waxay noo soo daynayaan waxa loo yaqaano waxay soo daynaysaa ama shaqadiisa waxay bataan syncytial trophoblast inay soo dayso HCG. soo dii wala HCG waa la soo daaya after 2 weeks soma after consumption. waxay ka xisaabinayaan meesha waa consumption ka ma ka xisaabinayno LMB ma ka xisaabinayno. waxaan leenahay laba age ajiraan dhahnay LMB age ah iyo consumptional age. marka consumption-ka ka xisaabinayno oo ah markuu dhacay consumption kadib 2 week kadib ayaa HCG la soo deynaa. yaa soo deynaa marka syncytial trophoblast waa uu soo deynaa si oo corpus luteum-ka lagu xifdiyo. corpus luteum haddii la xifdiyo maxaa dhacaya in la soo daayo corpus luteum estrogen progesterone oo naga ilaalina uusan dhicin contraction premature contraction uusan dhicin waxa loo yaqaano abortion uusan dhicin oo naga ilaalina. marka HCG waa very important. waan arki doonaa hadda si gooni ah oo sharxi doonaa casharada ku soo socda ku xigo. marka waxaan leenahay waa qaybta chorionka iyo waxaan leenahay iyo waxaan leenahay qaybta chorionka iyo waxaan leenahay iyo decidual. qaybta waxaan leenahay chorion qaybta waxaan leenahay waa decidual. waatan waan sheegnay qayb banaan uu leeyahay iyo qayb gudaha ah. qaybta banaanka laba qayb ah. qayb oo fixed ah oo geli doonto gudaha waatan gudaha geli doonta oo endometrium-ka invasion ku sameyn doonta waatan invasion. qaybna waa free labadaas qaybood ayuu ka kooban yahay. marka waxaan dhahnay marka this is waxaan wuxuu dhacaa second week. waa inaad taqaana marka second week waxa dhacay first week iyo ay third week maxaa dhacay marka this is third week. yani waxaan leenahay third week maxaa dhacay. third week waxaan dhacayaan leenahay waxaa sameyn waaya 3 layer loo yaqaan ectoderm
mesoderm and endoderm. Ay mid walba waxay siin doonto organ, mid walba waxaa ka imaan doonaa organ. Ectoderm waxay siinaysaa organo xubno, endoderm waxay qayb u sii doontaa, and mesoderm organo kale ay sii doontaa. Markii goorma sameyn aniguna 3 isbuuc saddexaad isbuuc kooda kan waxa dhacay, isbuuc labaad waxa dhacay soo inuu siiyay laba layer oo loo yaqaan qaybna inner cell mask iyo outer cell mask. Outer cell mask trophoblast waxa la inuu laba qayb noqonay since oo invasion ka sameeyay since trophoblast and trophoblast. Ama third week waxaan ku sameynaa 3 layer germ layer loo yaqaan endoderm, mesoderm and ectoderm. This waxa la waa third week. Hay waxa dhacaya idan waxa leenahay 4 week waxa dhacaya isagana 4 week waxa leenahay isagana waxa dhacayo oo ugu muhiimsan organ-kiina sameysmaan, yani 4 ilaa 8 week, yani 4 ilaa 8 week waxaa leenahay waxaa sameysmaayo wax loo yaqaano major organs-ka sameysmaayo. So ani bukaanka hadduu isticmaalo radiation ama ani drug ani isticmaalo 4 to 8 week most waxaa leenahay waa teratogenic, yani waxaa leenahay waa xilliga organka oo sameysmaayo, yani 4 to 8 weeks, yani waa xilliga laga cabsanayo inuu dhaco ani mataqaana inuu dhaco ani injury ama ani mataqaana congenital malformation xilliga u dhacayo waa misafan. Marka mataqaana first week, second week, third week and 4 to 8 inuu dhacayo oo main organ ama major organ-kiina sameysmaayaan. Third week waxaa dhacay dhahana ectoderm, endoderm, yani 3 germ layer ka sameysmaayo. First week waxaa dhacayo yani fertilization-ki soo dhacayo and cleavage-ka ilaa u dhacayo implantation-ki. Second week waxaa leenahay waxaa sameyn implantation ku dhaca blastocyst-ka waxaa leenahay gudaha gelaysa, yani inner cell mass and outer cell mass. Outer cell mass trophoblast waxaa laba qayb waxay noqon doontaa free, qaybna waxaan dhahnay waxay geli doontaa qaybna waxaan dhahnay waxay geli doontaa invasion ka doontaa. Intermediate waxaan u bixinay decidua waxaan dhahnay aan u bixinay oo loo yaqaano decidua bisalis and decidua caps oo dhex gelaysa invasion ka sameyn doontaa. Hadhowna waxay sii doontaa placental part. marka waxaan indeed laba qayb ku noqon doonaa. waxaan markii uu dhaco inner cell mask iyo outer cell mask. waxaan outer cell mask ugu muhiimsan inuu sameysmaayo wax loo yaqaano outer cell mask ama loo yaqaano trophoblast, inuu qayb fixation leeyahay iyo qayb inuu leeyahay qayb fixation wuxuu leeyahay asaga wuxuu leeyahay marka saddex first and second and third wuxuu leeyahay chronic villi, yani first and second and third. Third markuu gaaro waxa waaye wuxuu ka kooban yahay blood ayaa ku jiraya sama soo. marka this waxaan leenahay marka waxaan leenahay this waa waxaa waaye mataqaanaa qaybta koowaad aan uga hadli lahayn physiological of conception-ka ayaan soo gaarnay. meeshaas ayaan ku istaajinaynaa. berri ayaan sii dhamaystiri doonaa casharka ku xigo ama qaybtii labaad of conception-ka berri ayaan dhamaystiraynaa. sala allahu ala nabiyina maxamed alayhi wasalam. wixii su-aalan waan soo weydiin kartaan insha allah.